السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida nagala socotaan waa galabnimo Isniina bisha Agast 12 sanada 2024 qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaan waxa kamid ah xogihii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray markaasi magaalada Ankara ee caasimadda wadanka Turkiga oo halkaasi ay isugu tageen markaasi wufuud ka kala socota wadamada Itoobiya iyo waliba Soomaaliya ayaa xog kala duwan ay ka soo baxayaan waxaana ay warar ku tilmaamayaan in dawladda Itoobiya ay ku qanci laadahay dalabkii uga imaaday dhanka markaasi dawladda Soomaaliya ee ahaa markaasi in ay heshiiskaasi saxiix doonaan iyaga isla markaana ay gudahanba ku wareejin doonaan qaybo kamid ah dekedaha ku yaala markaas Somaliland. Hadaba arrinkaas ay inay doonaa oo su'aalo fara badan ay ka keentay dawladda Itoobiya laba qodob ayaana la isku mari laayahay oo markaasi aad u adkaaday. Labada qodob ee markaasi labada dhinac ay isku mari laayihiin ayaan eegi doonaa. iyo xogahan soo gaaray oo sidoo kale sheegaya in wadamada markaasi Ingiriiska iyo Sultanka Imaaraadka Carabtu ay soo farageliyeen gudahaan shirkaasi iyo qaabka marka ay soo farageliyeen inay doonaa iyo cid ay taageersan yihiin labadaas wadan gudahaan bay inay taageersan heshiiskii hore ee dhaxmaray Somaliland iyo Itoobiya iyo inay haatan markaasi ay dawladda Itoobiya ku khasbayaan inay Soomaaliya heshiis la gaadho ayaan eegi doonaa cid ay markaasi la jiraan labadaas wadan. iyo sidoo kale safarka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ku marayo gobolada bariga Somaliland oo uu ku tagay markaasi deegaano cusub saacadihii ugu dambeeyay waxaana wararku tilmaamayaan inuu markaasi madaxweyne Biixi tagi doono meesha ugu fog ee markaas Somaliland ay markaa dhanka bariga ka joogto waana degmada Og halkaasi oo ay joogaan ciidamada Somaliland. Hadaba madaxweyne Biixi ma gaari doona ayaan eegi doonaa gudahanba gobolka Sool sidoo kale waxaa dhaqaaqay ciidan markaas laga dareemayaa gobolkaasi Sool waxaana cabsi weyn markaas laga qabaa in dagaal uu dhici karayo maadaama xilligan wufuud kala duwan iyo ololihii doorashada ee Somaliland uu si rasmi ah u bilowday madaxweyne Biixi iyo xisbigiisuna ay haatan markaasi olole xoogan ku jiraan. waxaan dhinaca kale aan eegi doonaa markaasi gudahanba ololaha haatan soconaya ee madaxweyne Biixi iyo xisbigiisu ay wadaan ma u suurtagelin doona markaasi inay Somaliland ay mar kale dib ugu soo laabtaan xukunkeeda iyadoo tartan adag markaasi la filayo inuu dhexmari doono axsaabta Somaliland gaar ahaan xisbiga wadani iyo sidoo kale xisbiga Kulmiye. Qodobaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada. aan ku bilownay waxa xogo markaasi soo taray ay ka soo baxayaan gudahaan shirka markaasi uga bilowday dawladaha Soomaaliya iyo markaasi Itoobiya wadanka Turkiga waxa uu martigeliyay markaas shirkaasi hadaba saacadihii ugu dambeeyay waxa xogaha markaan soo gaaray ay sheegayaan in dawladda Itoobiya ay ku qanci laadahay dalabkii uga imaaday dhanka markaasi dawladda Soomaaliya waxay markaasi ay go'aan ku soo gaadhay iyada Turkigaba in heshiiskan uu sidiisa ahaado kadib markii laga fujin waayay markaasi dawladda Itoobiya oo iyagu ay soo saxiixi doonaan kadibna ay Somaliland ula imaan doonaan markaas Somaliland sidaasi ay markaa kaga dhamaysan doonaan balse Somaliland iyadu banaanka ay istaagtay waan ay diiday isla markaana waxay sheegtay in waxa la dhoodhoobay markaasi uu san ahayn wax Somaliland khuseeya heshiis soo maray markaasi dawladda federaalka ee Soomaaliyana uu san markaasi ka hirgeli doonin Somaliland. Hadaba dawladda Itoobiya waxay weydiisay su'aashaasi dawladda markaasi Soomaaliya waxaana ay markaa u sheegtay haddii heshiiskaasi iyagu ay saxiixaan dhulkii la saxiixay ay gacanta ayna ku haynin siyaasad ahaan iyo markaasi gudahanba ayna si toos ah gacanta ugu haynin sidee ayaa markaasi dawladda Itoobiya loogu fududeynaya inay halkaasi tagaan gudahanba markaasi ciidamadeedu iyo markaasi ay dawladda Itoobiya dekad ka dhigato heshiiskaasina uu hirgalo. Hadaba dawladda Itoobiya sidoo kale waxa ay soo qaaday ciidamada markaasi badda ee dalka Itoobiya oo ay u doonayaan inay saldhig u helaan markaasi military. Dawladda Soomaaliya markaasi waa ay ka dhiga adeegaysaa in ciidamada badda ee dalka Itoobiya ay soo gaaraan markaasi xeebaha Soomaalida waxaana ay wararku tilmaamayaan in qodobka ugu weyn ee la isku hayo uu yahay markaasi ama labada qodob ee ugu waaweyn ay yihiin qodobkaasi markaa ciidamada badda ee dalka Itoobiya ee markaasi doonaya inay soo gaaraan xeebaha badda cas sidii markaasi ay ku imaan lahaayeen oo dawladda Soomaaliya markaasi ay ka dhiga adeegayso iyo sidoo kale dhinaca kale sida markaasi heshiiskaasi uu ku fulayo oo Somaliland oo diidan markaasi deegaanadeeda ay ku tagayaan markaasi gudahanba Itoobiyaanku oo halkaas uu heshiis markaasi uga hirgeli karayo. labada su'aalood ee la tilmaamay markaasi inay soo bandhigeen Itoobiyaanku isla markaana ay gudahanba xilligan dawladda Soomaaliya laga doonayo inay jawaab waafi ah markaasi ka bixiso. Hadaba dawladda Soomaaliya waxa la tilmaamay inay ka jawaabtay su'aalaha qaar isla markaana ay sheegtay in ciidamada Turkiga ama dawladda Turkigu ay u fududeyn doonto markaasi Itoobiya in heshiiskaasi uu hirgalo oo Somaliland markaa ayna caqabad noqon karin. Somaliland markaasi laga awood badan yahay oo xilligan inay jirin markaasi Somaliland hor istaagi karta gudahaan heshiiska ay wada gaaraan Itoobiya iyo gudahaan markaasi Soomaaliya. Itoobiya su'aal kale ay markaasi gudahaan ku soo celisay oo ah in dagaalkii markaasi ay dawladda Soomaaliya ka baaqsanaysay ee laga cabsi qabo markaasi inuu dhexmari karayo dawladaha
Turkiga iyo Ethiopia in haatan markaasi ay dowladda Soomaaliya rabto inuu dhaxmaro markaasi Somaliland iyo markaa wadanka Ethiopia iyo Turkiga oo markaasi isaguna dhinac ka soo weeraraya ma dagaal ayaa doonaysan in halkaas aan ku tagno oo markaasi halka ay gudahaan dhiig iyo rafaad markaasi aan ku gaarno xeebahaas ayaa doonaysan ayaa la weydiiyay markaasi Soomaaliya su'aalahaas ayaa markaa la isdhaafsaday ilaa iyo haatan markaa waxay wararku tilmaamayaan in jawaabuhu ay aad ugu adeeg yihiin dhanka markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya oo gudahaan markaasi aad wax la isaga weydiinayo sidii heshiiskaasi ku hirgalayo maadaama Somaliland iyadoo ay soo bandhigtay warcad oo ku aadan in wax walba oo markaasi dhexmara ama heshiis walba xamar lagu soo galo inuusan Somaliland ka fuleynin Ethiopia taasi walaac xoogan ay markaasi ku haysaa oo arrinkaas ayaa aad la isugu hayaa dhinaca kale waxa wararku ay tilmaamayaan in dowladaha markaasi Ingiriiska iyo sidoo kale Istaga Imaaraadka Carabtu in aad ay gudahaan xilligan u faragelinayaan shirkaasi doonayaan markaasi in ay galangal ku yeeshaan dowladda Istaga Imaaraadka Carabtu waxa ay aad markaasi u doorabidaysay aadna u taageersanayd heshiiska dhexmaray Ethiopia iyo Somaliland inuu hirgalo oo labada dhinac ay kala saxiixdaan heshiiskaasi warar hoose oo helena waxay sheegayaanba in Somaliland ay u ballan qaaday markaasi Imaaraadka Carabta in sida Turkiga loogu wareejiyo Soomaaliya xeebaheeda in Imaaraadka Carabtana markaasi lagu wareejinayo xeebaha markaasi Somaliland ay kala qayb qaadan doonaan amni ahaan iyo markaasi inay taageerayaan ciidamada badda ee Somaliland wasida xogahan helina markaasi ay sheegayaan arrinka hadaba si markaasi ay uga midho dhaliyaan Imaaraadka Carabtu waxay bilaabeen gudahaan olole xoogan oo ku aadan inay Somaliland ay markaasi u soo jeediyaan inay wadamadu qaar markaasi ay aqoonsadaan iyadoo la ogaa in xitaa Mareykanka ay u soo jeediyeen inuu Somaliland aqoonsado waxyaabahaas waxa ka keenay markaasi Imaaraadka Carabtu waxa la sheegay in Somaliland ballanqaadkaasi ay u sameysay oo ah ballanqaad weyn runtii Imaaraadka Carabtu waxa uu doonayaa in uu markaasi isku helo gudahaan markaasi Ethiopia iyo Somaliland oo marin muhiim ah iyo sidoo kale dad fara badan oo suuq fiican inuu isku helo labadaas uu isku helo markaasi uu saameyn fiican yeelan lahaa markaasi uu gobolka ku yeelan lahaa Imaaraadka Carabtu waxa la isku haystana waa saameynta gobolka badda cas ilaa iyo markaasi gudahaan dhanka Yemen iyo aagaasi oo haatan noqday aag markaasi bariga dhexe marka la mid ah marka la eego dhanka saameynta oo xaalad xoogan ayaa markaasi ka taagan halkaas waxa la isku hayana waa halkaasi Turkiguna waxa uu doonayaa inuu gudahaanba uu halka xoog ku qabsado Imaaraadka Carabta iyo Ingiriiskuna waxay doonayaan in iyaguna ay markaasi saameyntaasi ka soo qayb galaan oo ay gudahaanba halka ayaguna helaan hadaba waxaan eegi doonaa gudahaan markaasi dowladahaasi waaweyn ee haatan soo galay shirka ma fashilin doonaan gudahaan dhinaca kalena ma u rogi doonaan heshiiskan la doonayo in Ethiopia iyo Soomaaliya markaasi la dhaxdhigo sidoo kale wararku ay tilmaamayaan in qorshuhu uu ahaa markaasi ama haatan uu yahay in wasiirada arrimaha dibadda ama wafdiyada markaasi ka kala socdo Soomaaliya iyo wadanka Ethiopia inaysan halkaasi ka tagin oo loo yeero madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo soo kale ra'iisul dalka Ethiopia Abiy Ahmed hadii la isku afgarto qodobada haatan la gorfeynayo waxa la doonayaa markaasi in ay labada dhinac labada wafdi haatan jooga markaasi magaalada Ankara inay wax isla meel dhigaan oo markaasi la sii karkariyay heshiiska marka uu saxiix gaarana loo yeero markaasi Abiy Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud sida markaasi uu la xiriiray Erdogan oo labada dhinac markaasi la hadlay labada hogaamiye markaasi la hadlay waxana uu sheegay sidii wararku tilmaamayaan marka ay wasiirada arrimaha dibadda markaasi ama wafdiga haatan kala socda labada dhinac ay wax isla meel dhigaan inay labadoodana markaasi ay imaan doonaan oo ay halkaasi ku saxiixi doonaan heshiis markaasi wada jir ah hadii la isku afgarto qodobada haatan markaasi la isla karkarinayo waana qodobo runtii aad u adag iyadoo la tilmaamay markaasi in xitaa la isku dayayo in heshiiskaasi dhinaca kale loo rogo oo gudahaanba uusan hirgelin wadamo waaweyn ee markaasi haatan ku soo biireen gudahaan saaxadda lagu herdamayo akhayrta sharafta leh hawada nagala socoto oo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo